السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتك حرن عمرك يوتيوب رمضان الكريم أفر وناكسن آدي آدم كل حيسي عاو وحن درراي مر لباد مر سدحات مر أفراد إنا هرتي نسو استاغو عاون هدو إلهي كران النقض وحن آدي آدم جعلهاي إنا دين الله هدو برنامج آدي خالية انت أنا نقول قل فضلا وحين قعد صنايا لايك شير سبسكرايب كومنت انت بيناتك بحسان وحاتين ولا لي خالقة waxaan mar walba aan hortiina soo istaagaa kalsooni idinka helo waxaan mar walba isku diyaari waa kalsoonida dhabta ah ma aragta igliseen markaan arko commentigiina ama like-giina ama views-ka inta fiirsato markaan arko aad iyo aad aan ugu faraxsanahay video-gayga markaad sii share gareysaan farxadeeda aad ay u sii loo jibaarantaa lama qiyaasi karo inta aniga aan dareemayo khiyaartii ugu xiran waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idin leeyahay waa idin jeclahay oo aad iyo aad aan ku jeclahay hadalka idinku ma sii dheereenayo insha Allah waxaan jeclahay inaan barnaamijkeena inaan sii guda galo caawa waxaan jeclahay inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan xaqa ay leeyihiin waalidiinta kulli anaga dhan waalidiin waan leenahay ilaahay noo deesto cimri dheer iyo caafimaad u baryana inta ay ka dhimatay ilaahay waxaan ka baryanaa inuu jannatul firdaws oo ka waraabiyo caawa waxaan jeclahay inaan ka hadlo waalidiinta sababtoo ah waalidiinta waa adduunka oo idil ayuu ku taagan waalidiintu waxa waa nolosha dhabta ah oo bini aadamka maarta ay ka abuuran yihiin waalidku waa shay aad iyo aad u qaalisan waalidka xaqooda waxaan aaminsanahay shakhsi bini aadan oo nool inuusan soo koobi karin xaq ay leeyihiin khaasatan hooyada waxa waaye waa furaha nolosha adduunka ku taagan tahay hooyada waa shayga ugu qaalisan ee nafta bini aadanka ee adduunka korkiisa ay ku saaran tahay hooyo xaqeeda haddaan ka hadlo run ahaantii waxaan aaminsanahay haddaan maanta awood aan u yeelano inaan inta xambaar kaga qaadno ilaa xaramkii ilaahay aan dusheena ku geeno xataa waxaan aaminsanahay inaanan xaqeeda ama raba soo celin karin waayo hooyada waa xaqeeda waa shay aan mar walba qiyaasi karin hooyo meel walba ay ku nooshahay aad iyo aad ayaan ku jeclahay hooyo meel walba ay joogto aad iyo aad ayaan u ixtiraamnaa hooyo meel walba ay joogto waxay naga mudan tahay inaan xushmad iyo wanaag aan mar walba hadalkeeda aan ku ajiibno hooyo waa shayga nolosheena dhabta ugu qaalisan hooyo meel alaal meesha ay joogto waxaan jecelnahay inaan ku ogaano meel alaal meesha ay joogto waxaan jecelnahay inaan ku xiriirino waayo hooyo nolosheeda ma ahan mid mar walba la sahalsan kara hadda xaqiiqda aan ka hadlo waayo hooyada waa nolosha dhabta ah oo shakhsiga bini aadamka adduunka uu ku saaran yahay la soco haddaad tahay gabar ama haddaad tahay wiil waxaad ogaataa mar walbo hooyada xaqeeda inay tahay shay aad iyo aad u qaalisan waayo la soco hooyadaada 9 bilood ayay kuu soo sabraysay hooyadaada waxaa laga yaabaa 9 bilood inay adiga ku xanuunsaneed hooyada waxaa laga yaabaa 9 bilood inay adiga dartaada cuno ugu go'day hooyo waxaa laga yaabaa 9 bilood adiga dartaa dhibaato badan inay u martay hooyo waxaa laga yaabaa 9 bilood inay wax walbo adiga markaas ay kugu xakameynayso oo nolosheedana ku horumarinaysa inay hooyo meel kugu gaarsiiso hooyo waxaan aaminsanahay shayga dhabta ah oo nolosha adduunka ama nolosha bini aadamka ah inay hooyo aysan ka maarmin hadduu yahay xataa shakhsiga markaa 100 sano jir xataa hadduu yahay hooyadiisa agtiisa waxay ka tahay asigoo 1 sano jir ah hooyana waa nolosha dhabta ah oo shakhsiga bini aadamka uu ku taagan yahay hooyo meel alaala meesha ay joogto waxay inaga mudan tahay cizo iyo sharaf iyo mudnaan intaba inaan u kaashano hooyo waxay ka mid tahay nolosha bini aadamka ah midda ugu horeysa inuu jiro shakhsi bini aadam ah sababtoo ah bini aadam ma jiri lahayn haddaysan hooyo jirin sababtoo ah hooyada waxaad arkaysaa adiga dartaada nolosheeda waxay jeceshahay adiga dartaada inay ugu sabarto hooyo waxaad arkaysaa ayadoo gaajaysan misna adigoo ma aragtay laga yaab xataa inay saakay wax ku siisay ayadoona cunin haddana qada haddii la gaar waxaa laga yaabaa qaybta ayada saakay ku quraacan lahayd inay qada ahaan kuu siiso hooyo waxa waaye nolosheena midda dhabta ah mar walba ugu horeyso hooyo waxaan aaminsanahay inay tahay nolosha furaha adduunka ee ku taagan yahay shakhsi walboo bini aadam ah hadda walaalkayga ama walaasheed waxaan mar walba idinkaga digayaa hooyadiina inaadan gadaal u fiirin markaad fiirinaysina adiga oo kaamil ah inaad fiiriso sababtoo ah hooyadaada markaa istaahisha inaad gadaal u fiiriso waayo hooyo qiimaha ay leedahay waa midaana loo adkaysan karin sababtoo ah nolosha hooyo waxay ku saabsan tahay waa midda bini aadamiga oo dhan ay ku taagan yihiin hooyo nolosheeda waa midaan marnaba la xakamin karin waadna ogtihiin waana ogahay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay diinta si fiican u bartaan ayna yaqaanaan xuquuqda waalidka haddana waxaad arkaysaa dadka qaar oo hooyadood agtooda qiimaba aan ka lahayn waxaad arkaysaa nin ayaa wuxuu sameynaya ama xaas guursana ama reer yeelanayo markaasi gabadhu waxay leedahay aniga hooyadaada ma arki karo mas hooyadaada waxaan rabaa
inaa macnaha agteeda ka khariso mase anaa i furaysaa. markaasuu ninka wuxuu ku degdegayaa inuu hooyadiisa ka fogaado sida uu u raalgeliya xaaskiisa. taasna aad bay u xun tahay, sababtoo ah hooyada waa midii shalay adiga kuu sabraysay, midii adigoo shalay aqoon ama qiimo ama waxba aadan ku fadhina qiimo ku yeeshay, mid adigoo shalay meesha lagu dhiga xataa aadan ka kici karin. waa midii garacanta kaa qabatay oo ku istaajisay, waa midii shalay garabkaaga taagneed oo kalsooni iyo awood walba garabkaaga gelinaysay, waa midda mar walba ku dhiirigelisay. haddaad tahay xataa 1 sano jir mase haddaad tahay 100 sano jir, waxay mar walba hamigeeda uu yahay inaad jirto ama kalsooni aad ku noolaato. hooyo nolosheeda waxaan aaminsanahay marnaba inaysan ahayn shay daciif ah. idinkana walaalahayga walaasheeda ama walaalkayga waxaa mar walba idinkaga codsanayaa, haddee hooyadaada ku nooshahay inaad mar walba hooyadaada ogaato, hooyadaada caafimaadkeeda inaad ogaato, hooyadaada inaad daryeel wanaag u samayso, hooyadaada mar walba inaad qiimayso. ha isku dayin adigoo misna maxaa la dhahaa oo ka walwalaaya micnaha reerkaaga dartiisa inuu hooyadaada madaxeega kaaga burburo inaad teleefon ku dhegaysato ama aad ka guurto meesha ay degan tahay. la soco adiga hadda hamigaasi leh, shalay haddee waxyaabaha qaar adiga kugu samayn lahayd inaadan adiga awood u lahayn inaad maaragtay hamigaas aad yeelato, laakiinse waxay kugu soo martay waa dulqaad iyo samar. gaajo kugu soo sabartay oo dharagii kugu soo xambaartay oo waxay ayada nafsadeeda ka jeceshahay adiga kuu habeen jirtay. waxay mar walba jeceshahay haddii dhibaato maqasho laga yaabo inay habeenkiinaba ay jiifanin. adigana waxaa laga yaabaa hooyadaa xanuunsanaataa inaa Mareykanka, Ingiriiska iyo wadamadan Yurub ama qurbaa inaad joogto, haddana hooyadaada ay ku nooshahay laga yaabo meelo sax maxaa la dhahaa geeda iyo duur ay ka baxayaan, oosna haddana hooyadaana nolol adag ay ku jirto, adigana frinjeer iyo maxay ahayto nolol raaxa aad ku jirtid. hooyadaana aadan warba ka helin, laga yaab inay xoololey tahay, laga yaab inay beeraley tahay, oo maantana garab iyo waxba ay haysanin. marka walaalayaal waxaa idinkaga codsanaya inaadan mar walba hooye sheegi la dhaho aadan dayicin, waayo hooyada waa noloshaada dhabta oo adiga aad ku taagan tahay. maanta waxaan aaminsanahay haddaysan hooyadaada maaragtay adduunka ay joogin ay kaa dhimatay inaad adiga meel kaa banaan tahay 100%. hooyadaada waxyaabo badanay kuu buuxisaa, hooyadaada waxay kuu buuxiso maanta lacag laguma keeni karo, maanta shakhsi bini aadan ah kuuma dabiri karo. hooyadaada noloshaada dhabta ah waxay awood u leedahay wax walboo adiga hamigaaga ah ama wax walboo adiga farxadaada ah inay noloshaada dhabta ah maaragtay ay madaxa ku saarto. hooyadaada aad ayay kuu jeceshahay walaal ama walaasheed. waxaa idinkaga codsanaya mar walba aa idinka codsanaya inaadan hooyadaada dayicin. hooyadaada haddaad dayacdo kulley adigan waa dayacan tahay, birina adiga kuwaad dhashaa meelba kugu sheegi doogin, sababtoo ah hooyadaada haddaad maanta waxay iyada rabtaadan u samaynin, biri adiga cid waxba kuu samaynaysa haba yaraatee ma jirto. hooyo waa nolosha dhabta ah walaalahayga muslimka ahow. hooyo waa shayga qaaliga ah walaasheed ama walaalkayga Soomaaliyeed. hooyo marnaba yaanna laga dayicin. hooyo waa nolosheena kalsoonida dhabta ah noo dhexayso, sababtoo ah diinteena calayhi salaatu wasalaam, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waad ogtiin hooyo soo kaga hadlay. hooyo 3 mar ayuu sheegay, aabbana 1 mar ayuu sheegay. taasina macnaheeda ma ahan hooyo inay qiimaheeda hoos u jiro, maya. hooyo waa furaha dhabta noloshaada. hooyo wax walbaad maanta aad samayso adduunka korkiisa saaray, ilaahay baan ku dhaartee inaadan waxba ka dhimi karin awaalka ay ku gashay. adigana maanta $100 aad u diraysaa, hooyadeeda waan biila aad leedahay, bal ma fiirisay intii adiga ay kuu soo martay, meeqa jeer ayaa adiga dartaada gaajo u soo martay. walaasheeda ama walaalkayga waxaa idinka codsana hadday waalidiinta kuu nool yihiin inaad mar walba ogaato, hadday dhimatayna waxaa idinka baryaa caawa waa jimco inaad ilaahay u barisaan inuu jannatulfirdowsa ka waraabiyo. hooyo waa furaha nolosha dhabta ah walaasheeda ama walaalkayga. mar walban waxaa idinka codsadaa inaadan waalidkiina dayicin, sababtoo haddaa waalidkaaga dayacdo bili adigana waa dayacan tahay. mar walba walaalkayga ama walaasheed waxaa idinkaga digayaa haddii waalidkaaga nool yahay misna hadduu dhintay, intaba inaad jannada ilaahay ugu bariso. waayo caawo jimco waayo, laga yaabo caawo inay tahay habeenkii soonka ugu dambeeyo oo sabdiga soo galayo. walaasheeda ama walaalkayga waxaa idinka baryayaa inuu ilaahay xaqana waafajiyo dartii in aad waalidkaaga u naxariisato. mideeda kale waxaa aad iyo aad idinkaga codsanayaa videogan qof alaala qofka uu soo gaaro Soomaaliyeed inuu gaarsiiyo daafaha caalamka meel alaala meeshuu adduunku ku egyahay. fadlan waxaa idinka codsanayaa mar walba oo videoga idin soo gaar inaad share garaysaan. fadlan mar walba waxaa idinka codsanaya inaad mar walba share garaysaan. waxaan jeclahay walaalaha Soomaaliyeed meel walba daafaha caalamka joogaan inuu videogan gaaro. waa idin baryaa walaalahayga walaasheeda ama walaalkayga muslimka ahoo mar walba videoga kusoo gaara bil fadlan inaad share garayso igula dadaal. ilaahayna waxaan kaaga baryayaa adduunya aakhir inaad janno aad ku raaxaysato. ilaahayna waxaan kaaga baryayaa noloshaada inay noqoto mid adduunya aakhir iftiinto. ilaahayna waxaan kaaga baryayaa noloshaada inay noqoto markaad adduunkana ku nasato aakhirana aad ku noqoto mid ku raaxaysto. waxaa mar walba idinka codsanaa walaalahayga ama walaasheeda videoga idin soo gaara inaad share garaysaan, aad mar walba ku dadaashaan walaasheeda ama walaalkayga
waxaa idin la hadlaya waa walaalkiina cumar idriis abuukar oo loo yaqaano cumar keeyo. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.